ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa deegaanka Booco oo qiyaastii 55 kilomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay maanta ka fuliyeen weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen kooxda argagixisada Al-Shabaab oo fariisin u ahayd muddooyinkii u dambeeyay. Weerarka ayaa waxaa si wadajir ah u fuliyay ciidamo isugu jira nabad sugid military iyo boolis. In ka badan 20 ruux oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaana lagu dilay weerarkaasi intii uu socday. Tiro intaa ka badanna waa lagu dhaawacay sida uu xaqiijinayo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Mudane Axmed Cabdulle Inji oo warbaahinta la hadlay. Bismillah alxamdulillah saaka warqabto saakito ciidamada dawladdu waxay ka howlgaleen deegaanka Booco oo nimanka nabadiidka argagixisada ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyay ay joogeen. halkaas waxaa loo geystay khasaaro naf iyo maal leh, hub waa loo soo furtay. dad badan oo cadawga Soomaaliyeed oo dalkaari diinka soo duuleen waa lagu dilay. waxaan aad u xunnahay ilmo Soomaaliyeed oo soo qaldayaan marba ay leeyihiin waajahadayna been sheegayaan. waa dad Soomaaliyeed laakiin fikrad xun laga dhaadhacsiin. halkaas marka loogu dilay khasaaraha ilaa iyo 20 ruux ama ugu dhibatay oo kuwii beenta dadku ku xukumayo dhahay sharciga islaamka dadku ku xukumaynaho maxkamad ku sheegooda u joogay iyo maleeshiyaadkii qoryaha city oo ayagana meel ay ku sheegayeen xabsi u joogay. waxa kale farxad ah halkaas dad 30 ruux ah oo isu duulana ama baadil ay ku xirnaayeen waa laga deeyay. hubna waa loo soo furtay iyo rasaas. dad badan waa loogu dilay halkaas. marka waa guul markii laga fiiriyo dhankaas cadawgaas. inkastoo dad Soomaaliyeed ay qaldeen ay yihiin oo wiil Soomaaliyeed ay qaldeen ay yihiin, laakiin dalkan iyo dawladnimada iyo diinka ninkii fidna ku ah in la dilo sharciga la waafajiyo waa waajib. ciidamada marka waa ugu mahadcelinaynaa shaqadii ay qabteen iyo howlgalkii. insha Allah inuu gudoomiyaha gobolka sheegay howlgalkaasu waa sii soconaa insha Allah. waxaana insha Allah isku dayi doonaa goob kasta iyo meel kasta ay ku sugan yihiin in insha Allah taala ciidamada ka howlgalaan. waa cadow Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ka haray. waxaa qaaday ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya howlgalkaas ayaga fuliyay. ciidamada dawladda ayaa qaaday hawshaasu. cid kasta oo gacan siisay waxa leenahay waa ku maasantiin. shacabkana waa shacabkii la difaacay. qof kasta oo Soomaaliyeed waxa ku waajib ah inuu naftiisa iyo maalkiisa difaaco. waajib ay ku tahay taas. hayeele xoolaha ayaan qaadana walaalka handira ana waa nabadgal sax ma. marka qof kasta waxa waajib ku ah inuu ka jawaabo cadawgaas dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayo. qof kasta oo Soomaali ah dawladdu garab u ah waa waajib ay ku tahay. diyaarayna u yihiin dadka Soomaaliyeed inay dawladda la shaqeeyaan. in yar oo ay cabsi iyo argagax ku abuurayaan, laakiin dadku hadda waxay fahmayaan in mar walba cadawgaas la deeraan. maxay xoolahoodii bay dhacayaan, naftoodii bay dhacayaan, walaalkoodii dilayaan, hooyadooda kufsanayaan. marka waa niman diinta islaamka iyo Soomaalinimadaba cadow ku ah. qof kasta Soomaaliyeed intaas uu fahansan yahay diyaar u yahay insha Allah in ay ka joogaan. deegaanka howlgal baa ka dhacay. howlgalku meel lagu qabsadana ma ahayn, in la joogana ma ahayn. howlgal qorshaysan u ahaa. howlgalka baa lagu soo fuliyay sidii loogu talagalay u dhacay. marka dan kale oo in la joogo hadda laga lahayna ma lahayn. shaqadii loogu talagalay waa lagu soo fuliyay. annaga alxamdulillah wax dhibaato oo soo gaaray ma jirto. ragii ay nabad qaba yimaadeen, shaqada loo diray wax dhib oo hadda naga soo gaaray ma jiraan. ilaaha ku mahadsan. horta madaxa ma ahana waa niman zaalimiin oo tuugadaas ay madax u yihiin. waa niman tuugada madax u ah. diinta islaamkana ka been sheego oo halkaas sharci islaamka ku xukumayna. haw sharci islaam xukuma nin qof islaam inta qabtay sidii xoolihii u bireeyay. marka ninkii wax u doonaa hadda dhahay cadaalad wax ku dhawaa waa zaalim. kuwa xukuma zaalimiin. marka kuwa xukumayo dhahay wax baan xukumaynaa waa lagu dilay. kuwa horjoogaal waxayna way ku dhinteen. hubkoodii waa laga soo furtay. maxaa dad u xirnaay oo Soomaaliyeed oo baadil u xirnaayna waa la soo deeyay. muhiimadda inta sahay Cabdikariin Maxamed Siyaad Shabeelow TV-ga dowlad goboleedka Hirshabelle Beledweyne.